Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin salaama meel walbo aad dunida ka joogtaan iisoo dhawaada mar kale iyo cunto aad u macaan aadna ka heli doontaan insha allahu tacaala. waa maraqaas aad ku quruxda badan maasha allah. dhinaca kalena waxaa ka yaala bariis sida soortay aan u kariye, waa kana la socod wanaagsan waxaan ka suubiyey insha allahu tacaala. marka hore waa kana bariiska aan ka hadlayo waa furfur. marka hore uu bacda ku jiro waxaan ku dhaqay biyo, waxaan la dhigay biyo waa saas uu soo noqday. hadduu ii qalalo 1 hour ka bacdi maasha allah waa noocaas. marka insha allah saa u karinayo la socod wanaagsan. inta waxaan ku shubtay digsigan 3 koob oo biyo ah, 3 koob oo biyo ah. marka waxaan ku darayaa saliid olive oil oo 2 qaado camal ah qiyaas insha allah. waxaan sugi doonaa in yar markuu ii soo buro. cusbo waaye waxaan ku darayo kale, markuu ii soo buro ayaan ku darayaa bariiskii aan diyaariyey oon dhaqay. bariiska caadiga ma ahan, waa mid furfur ah marka la karinayo sida soorta camal noqonayo maasha allah. aad ayuu u macaan badan yahay, ila tijaabiye insha allah idinkaa ka heli doono. waa walaaqaya saaid inay digsiga ku dhagto ma rabo, inay saliidda xoogaa kusoo badbado mooyaane way digsiga ku dhagtaa. marka waa kaas waan daboolaa 5 daqiiqo haddana walaaqan ku celin doonaa insha allah. waa tasaasay usoo adkaata xoogaa. marka waan daboolayaa, dabkan u gaabinayaa, iyada waan sugayaa insha allah. dhinaca kale marka waxaan ku diyaarsanaa insha allah maraqii. inta waa hilib ida oo fresh ah waan soo jarjaray, waa kaasaa xoogaa aan shiilayaa 10 minute camal. marka waxaan ku darayaa hilibka saan markaa soo yeelo 1 maraq digaag ah. waa kaasaa markuu xoogaa gaduudkaas ka baabaa meelaan ku shuban doonaa insha allah. asaga saanuu diyaar ku yahay meelaan ku shubanayaa. marka waxaan soo diyaarsanayaa cagaarkii kale. waatana intaan maraqa ka hagaajinayo waa kabsar caleen, kale, 2 xabo yaanyo ah, bahalkan dill alda English mooga af Soomaali kuma aqaano insha allah. waxaan idin tusi doonaa qolofkan ka bixiye hashas xabo basashan oo wada isticmaali doonaa. dhinaca waxaa ka yaala spinach, kan dhinacan waxaa ii yaalo toon shiidan iyo sinjibiil shiidan. waa kana bahalkan idin sheegayo waa kaasaa qolofkiisa, waa kaasaa magaca af Soomaali kuma aqaano, waa bahal saaid u caraf badan. intana waxaa ii yaalo xulbo caleenteeda, xulbada caleenteeda waaye iyadoo qoyan waan waaye, mid qoyan aan ka jeclahay. marka waa tan waa mid qalalan laakiin waa caleenteeda. waxaan rabaa marka intaas waxa inaan isku shiido qayb marka hore aan isku shiido oo caleenta ah. minta spinach aan ku shubtay, waxaan ku daraa dhiilkii, waxaan ku dari doonaa insha allah kabsar caleen. waa kabsar caleen, waa xulbo caleenteeda, tan waa dry waa qaleel. marka waxaan ku darayaa kale, bahashu way buuxsantaba inaan riixay noqonaysa. waa kaasaa waa shiidayaa marka wax yar oo biyo ah I think 2 qaad 3 qaad miyaa moogay oo biyo aan qiyaasaan ku darsaday. biyo kale kuma taaban rabo, intaasaan ku shiiday waa taasaa.
maasha allah. Asaga waa kana intaan kusoo diyaarsaday. Marka intii kaloo dalacan lahaa inta waxaa ii yaalo bay leaf iyo waxaa yaalo 2 xabo yaanyo ah. basbaaskaas go yaran ka isticmaala caruur yar ay cunayso insha allah. iyo hashas xabo basashana waa wada isticmaali doonaa insha allah. intana waxaa ii yaalo xawaaji. waxaan ku shubanayaa 3 iyo 4 qaado inta u dhaxayso oo saliid olive oil birta. waxaan ku shubanayaa xawaajkii bay leafan ku dhex darayaa. caraf waa intaas marka u hormarayso maasha allah. basashan ku darayaa. waxaan ku darayaa marka toonkii shiidnaa iyo markay basasha xoogaa soo madoobaato hadii brown soo noqoto waxaa ku daray toonkii shiidnaa iyo sanjabiilkii shiidnaa. intaas aan isku walaaqaa marka hore. waxaan ku daraa caleentii aan soo diyaarsaday. maasha allah. intaas aan marka hore isku walaaqayaa. ugu yaraan 5 daqiiqo marka kuwa si fiican isku dhex galaan waxaan ku dari doonaa insha allah hilibkii. idaha xoogaa aan soo kariyaan kor ugu daray. waa maraq aad u macaan maasha allah. digirtan greenka aan ku darayaa. intaas marka hore isku walaaqaa. yaanyo iyo basbaas go yar ah. haddii aad basbaas jeceshahay halaa ku darsan kartaa waliba midka shiidana raacsan kartaa. ana laakiin ciyaal ay cunaayo soo maasha allah. waxaan ku darayaa qudradaas yar gooniga waa barbarooni iyo wax isku dhex jiro. waatana bacdi waa dib aan idinka tusi doonaa maasha allah. wax biyo laguma taabanayo. qudaartii yaraad had gadaal lagu dadalayo waa intaas. pepper onion waaye. cusbo yaran ku darayaa insha allah. qaado ma gaarayso markaas hilibka maraq digaag xabad kusoo kariyay. maasha allah. biyahan waxaa waaye blenderkan ku shiiday cagaarkii hadaayay aan wax yar biyo kusoo saas ugu soo loqloqo waa kana waa ku shubay. wax kale oo biyo ah laguma taabanayo insha allah. inta wax yar oo caraf ii yaalo maasha allah. waa xawaaji dhudhub shiidan huruud maasha allah iyo paprika curry powder. intaasaan ku daray caraf maasha allah. intaasaan ku daynayaa. daboolaan saarayaa. waxaan sugaa insha allah 10 daqiiqo. waa diyaar. waatana asxaabe. waa cunto aad u macaan maasha allah. teeda labaad markay ay maalmaha ciida ama celebration baa qabtiin macmacaanka ciid ee badsato inaa u daawo marisa ayaa fiican because macmacaanka badana caloosha fariisiya. cuntadana caloosha kicinaysa waa caafimaad. asxaabay la sii share garay asxaabtaada kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.